haddii ibtaadu ay ka yimaadaan qoyaan cad adigoo aan nuujinayn, waxaad halis ugu jirtaa saddexdan cudur. Kelyaha: haddii adiga oo aan nuujinayn ibta naaska ay ka yimaadaan qoyaan cad oo sida caaniyo oo kale ah, waxaad halis ugu jirtaa in kelyahaagu fariistaan. Caadiyan ibta naaska marka ay ka yimaadaan qoyaan cad oo sida caaniyo oo kale waxaa loo yaqaanaa galactorrhea. Galactorrhea inta badan waxaa ugu horeeya marka kelyaha in shaqadoodu ay gabaan ama kelyuhu inay fariistaan. Haddii markaad isku aragto ibta naaska in qoyaan cad ka yimaado, waxaad halis ugu jirtaa kelyahaagu inay fariistaan, weliba aad gaarto xilli kelyahaaga la dhaqo. haddiiba aad astaamahan isku aragta marka, waxaa qasaba inaad si degdega u baarto kelyahaaga iyo shaqadooda. Qodobka labaadna waa burooyin. haddii aad tahay qof dumar ah, ibtaadana ay ka yimaadaan qoyaankaas wuxuu noqon karaa qoyaan cad ama qoyaan jiijiitamaya. waxaa qasaba inaad iska fiiriso aad marto checking guud ama baaritaan guud, sababtoo ah baaritaankaas guud wuxuu kaa saacidaya inaad ogaato qanjiradaada shaqadooda inay tahay sidii la rabay. haddii qanjiradaada shaqadoodu aysan dheelitirnayn, waxaa kugu dhacaya in burooyin ay kaa soo baxaan. burooyinkaas inta badan waxay ka soo baxaan dhuunta iyo dhabarka. burooyinkaas marka waxay noqon karaan laba nooc. waxay noqon karaan burooyin fudud oo in la saaro ay fududahay, iyo burooyin hadhow isu bedeli kara kansar. qodobka saddexaad waa makaanka. inta badan cudurrada ku dhaca makaanka sida dhalmo la'aanta, dhiciska, probioodka, dilanka, waxyaabahaasoo dhan waxaa calaamad u noqon kara in ibta hooyada ay ka yimaadaan qoyaan cad iyada oo aan nuujinayn. haddii markaad isku aragto qoyaanka ibta naaska, ha fududaysan, hore ka gaar dhakhtarka haweenka. sidoo kale waa inaad saarto kombiyuutarka gudaha layska saaro ama kombiyuutarka uur ku jirta, sababtoo ah hubinta xubnaha taranka gaar ahaan makaanka waxay muhiim u tahay caafimaadkaaga. sokorta waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo sokorta. cudurka sokorta ma ahan cudur sahlan, waa cudur qofka inta cimrigiisa ka dhiman la socon doona. sidoo kale marka haddii aad ibta qoyaan aad ku aragto, waxaad halis ugu jirtaa in ay kugu dhacdo sokor. haddii marka aad dumar tahay, qoyaanka ibta naaskaas ku aragto, cudurka sokorta ayaad halis ugu jirta. hadhayalsan, waxaa qasab marka inaad yarayso waxyaabaha macmacaanka waa inaad yarayso, sababtoo ah halis waxaad ugu jirtaa sokorta. macaanka haddii aad sii badisana, khatar kale ayaad geli kartaa. marka waxaad u baahan tahay inoo kale inaad ogaato cabirka heerka sokortaada ay marayso. muuqaalka intaan ayaan kusoo gabagabeynayaa. saar muuqaalka inta aadan ka bixin. inaad saarto muuqaalka waxay keenaysaa in saaxiibo badan muuqaalku u gaaro naguna soo xirmaan.